xisbiga Odobe waa Axmed Xuseen Warsame telefishinka caalamiga Universal Hargeysa xildhibaano ka tirsan golaha baarlamaanka ee Soomaaliland ayaa shir jaraa'id oo iyaguna maanta ay ku qabteen magaaladan Hargeysa waxa si weyn ay ugu cambaareeyeen go'aankii horaantii toddobaadkan ay riday maxkamadda gobolka Hargeysa go'aankaasi oo maxkamaddu xukumo kala duwan ay ku riday saraakiil hore uga tirsanaa dawladda Soomaaliland iyo dad kale oo loo haystay eedo la xidhiidha musuqmaasuq iyo raashin la lunsaday warbixintan waxa mar kale inoo haya wariyahayaga Axmed Xuseen Warsame xildhibaanadan oo ka soo jeeda xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye ayaa geesta kalena tilmaamay in xukuumaddu ay ka leexatay barnaamijkii siyaasadeed ee lagu soo doortay iyo wixii laga filayay iyagoo garsoorka dalkana ay ku eedeeyeen xildhibaanadani in aanay u madax banaaneyn shaqadooda balse kolba sida ay xukuumaddu jeceshahay ay u yeelaan ugu horeyn xildhibaan Saciid Cilmi Rooble ayaa waxa uu shirkan jaraa'idi oo kaga hadlay qodobada uu ku dhalishan yahay xukuumadda Soomaaliland iyo sida uga soo horjeedo xukunkii ay maxkamadda gobolka Hargeysa dhawaan ay kula kacday qaar ka mid ah mas'uuliyiinta Soomaaliland oo ida musuqmaasuq loo xidhay halkan kow nidaamkeennii garsoorka oo wax la yaab leh daraato ka soo baxay laba nidaamkeennii siyaasadeennii arrimaha dibadda oo mugdi gashay nabadgelyadii oo lafteedu wagasha mashaakilkii qarankan oo isfuushan oo aan waxba laga xalilin waxa markaa aan leeyahay saaka madaxweyne waxaynu ku ballanay ee barnaamijka inoogu qoraa ee ahaa garsoor madax bannaan taa waynu ka baaqsanay qarankii waa ka baaqsan daal baynu kororsanay 10 sannadood ee la halgamayay ee aanu salacale aanu buuriyo badba jafnay ee aanu dee qayradii naga dhamaatay waxaynu kororsanay cadaalad daraynu kororsanay anigu waxaan leeyahay arrintaa anigoo ka wakiila dadku afkayga ku hadlayay ku ummadda aan mataqaanay wakiilka ka nahayba sharci darrada ma ogolin cadaalad darrada ma ogolin garsoorka maxay hayday la yeerinayo ma ogolin shalayto waa tii ku haysatay maxaad u lowday shalayto xildhibaan Ibrahim Jaamac Rayte ayaa isaguna si qoto dheer uga warramay sida uu uga soo horjeedo xukunka maxkamaddaasi oo uu sheegay in sifa sharciga baalmarsan loo adeegsaday xeer ilaalintu maalintii ugu dambeysay ee gunaanadka waxay ka noqotay qodob kiiskii ay markii hore lagu soo eedeeyay oo yiraahdeen waxba may cunin iyagu awoodoodii baa laga faa'iideystay maxkamaddana kama cadaan sida awoodooda looga faa'iideystay iyo cidda ka faa'iideysatay hadal qoraalkii waa yaalaa maxkamadda abiilku iyadaa soo saari doonta laakiin waxaan annagu ka hadlaynaa oo naga hadlayay waxa weeye waxaanu aaminsannahay garsoorka in xukunka loo yeedhiyey ee aanu ka soo bixin go-aankani aanu ka soo bixin gartii iyo dacwaddii la qaaday iyo markhaatiyadii iyo marag muujintii meesha ka dhacday iyo sharcigii hor yaallay midna aanu ka soo bixine ay tahay xukun la yeedhiyey waxaana taa caddaynaya oo muujinaya oo dee mugdiga ka saaraya sida ay isu khilaafsan yihiin go-aanka garsooruhu gaadhay iyo wixii meesha ka dhacay